iyadoo ay maalmo kooban ka hadhsantahay ciida bisha barakeysan ee Ramadaan iyo suuqyada bacadlayaasha ee magaalada Burco laga dareemaya kor u kac iyo dhaqdhaqaaq xoogan oo haatan ay ku jiraan dadweynaha badan oo ku soo qulqulaya si ay naftooda iyo ubadkooda uga haqabtiri lahaayeen gadashada dharka iyo waxyaabaha kale ee ubadkoodu ku ciyaaraan maalmaha ciida. Hadaba maraysa ka shabakada Burco online ku galeysay habsami socodka suuqyadaasi ayaa waxaan halkaas kula kulanay ganacsatada bacadlayaasha iyo sidoo kale dadweyne kale oo iyagu ku mashquulsan gadashada iyo iibsashada dharka. Magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa si weyn looga dareemaya dhaqdhaqaaqa bacadlayaasha oo ka socda haatan magaalada Burco kaasoo si xawliya ku socdo. soo wada duuba ciidani ayaa ka dhaqdhaqaaq yar marka loo eego ciidii hore taasoo ay sabab u tahay kor u kaca maciishada daruuriga ah, hoos u dhaca sarifka lacagaha iyo sidoo kale abaaro baahsan oo sanadii ugu dambeeyayba aafiyay gobolka Togdheer oo dhaqdhaqaaqiisu ku xidhan yahay xoolaha nool. Cabdirasaaq Faarax Cabdilaahi Cabdirasaaq Nakruma, shabakada caalamiga ah ee Burco online magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer.